waxaa wasaaradda batroolka iyo macdanta maanta sharaf weyn u ah inaan ka soo qayb galno daahfurka shirkaddan cusub ee rabta inay maalgashato khayraadka macdanta ee Soomaaliya isla markaana ugu deeqaysa macluumaad Soomaaliya ay hore u lahayd oo horay uga maqnaa oo dhibaatadii dagaaladii sokeeye ee keeneen dartood u kala baahay adduunka ugu kala baahay xilna iska saareen inay noo soo raadshaan macluumaad qayb ka mid ah macdanta Soomaaliya waxaan uga mahadcelinaynaa shirkadda runtii dadaalka ay u gashay inay nagu wareejiso macluumaadkan qaaliga ah ee wadanka uu leeyahay waxaan soo dhaweynaynaa cid kasta oo maalgashanaysa Soomaaliya dhinaca khayraadkeeda ha noqoto macdan qaybaheeda kala duwan ha noqoto shidaal ha noqoto gas intaba waxaan soo dhaweynaynaa ciddii maalgashanaysa oo ay ugu horeyso shirkaddan hadda SMMG. The senior MPs who are attending here today. The purpose of this event is to launch our new mining company here in Somalia, SOM Minerals and Mining Group Limited. This is a new venture. We saw a big opportunity here in Somalia to develop the mining sector and hopefully bring some much needed investment to create jobs and prosperity in the community throughout Somalia. So one of the things we thought we would do to help launch our relationship here with the Ministry of Petroleum and Minerals, we did a lot of research on what kind of surveys and studies had been done in Somalia in the past, historically.